magaalada ayuu yimid. Ma ahayn qof dhib badan, wuxuu noqday macallin jaamacadeed, balse ardadu aad u necab yihiin. Ardaydu lama hadli jirin isaga, kaftan iyo qosolna ma jirin. Wuxuu ka fogaaday macallimiinta iyo bulshada oo dhan. FBI-du Maraykanku way ku weerareen. dhowr dhacdo ayay la xiriiriyeen inuu ka dambeeyay barofesorkan. Xariif ayuu ahaa, wuxuu iska ilaaliyay tixraacyada oo dhan. Maraykanku guud ahaan cabsi ayaa soo wajahday. Dadka inta badan waxay ka baqayeen inay furaan boostadooda ama halka la dhigo fariimaha ama adeegyada kale. Waan kuu faahfaahin doonaa waxa uu yahay boost, balse waxaa jiray nin qaraxyo u adeegsanayay dadka isagoo ka caraysan sabab runtii kaa yaabinaysa adiga. Dugsigu aad buu ugu wanaagsanaa Ted markii uu 15 sano jirsaday. dugsigii sare wuu dhamaystay. 20 jirkiisana jaamacadda Harvard ayuu ka qalin jabiyay. 25 jirkiisuna wuxuu haystay shahaadada PhD-da. magaciisu waxaa loo soo gaabiyaa Ted. waa ninka idin muuqda. arrinta yaabka leh ee sheekadeena dhinaca kale u rogayso waa in ninkan uu ahaa barofesor, balse magac ay dadku la baxeen kaasoo ah Ambamber. ninkan wuxuu ahaa nin caqli badan, laakiin go'aamo qaldan ayaa u jaleeciyay dhanka xun. wuxuu doortay ku noolaanshaha keen cidla ah. halkaas ayuu ku samayn jiray bambaanooyin. wuxuu adeegsanayay habka boostada. boostadu waa adeeg qofku ogolaanaya inuu u soo diro qofkiisa oo ka fog, markaana waxaa loogu dhiibaa qof kale ama shirkad. kadibna qofkaas ayaa qaadayo una geynayo adreeskii loo sheegay. kadibna qofka markaa ayuu heli doonaa adeegii loo soo dhiibay. balse ninkan ayaa habkan isticmaalayay isagoo markaana dad u bartilmaameedsan u diri jiray. marka ay furaanna waxaa ku qarxi jiray bamkii. lacag raadis ma ahayn, argudisho ma ahayn, aanooyin kalena ma jirin. kaliya wuxuu doonayay in dunidu ay ka joogsato horumarka tiknoolajiyadda, isagoona aaminsanaa in dunidu ay khatar geli rabto. dabcan haddii fikirkiisii loo tixgelin lahaa muuqaalkan ma aadan daawateen maanta. haddaba waxaan raadinaynaa jawaabaha 3dan su'aal. sidee ayuu ku bilaabay qorshihiisa? maxaa sababay inuu noqdo argagixiso? sideese FBI-du ugu dambeyn ku qabatay ninkan? aan ku faahfaahiyo wax kastoo dhacay, balse ha ilaawin inay lama huraan tahay inaad nagu soo biirto. ana kaa rajaynayno inaad nagu soo booqato boggeena Facebook. bilowga sheekadeena. magaalada ayuu yimi, mana ahayn qof dhib badan. wuxuu noqday macallin jaamacadeed, balse ardadu aad bay u necbaayeen. ardaydu lama hadli jirin isaga, kaftan iyo qosolna ma jirin. wuxuu ka fogaaday macallimiinta iyo bulshada oo dhan. wuxuu noqday profesor jaamacadeed halkii laga rabay inuu noqdo bilow wanaagsan. balse Ted dambiile weyn ayuu noqday. wuxuu lahaa IQ aad u sareeya, taasoo lagu qiyaaso heerkii Albert iyo Stephen Hawking. wuxuu xaliyay su'aal xisaabeed oo ay aqoon-yahano badan xalin waayeen. wuxuu helay abaalmarin ku aadan cilmi baarista uu sameeyey. jaamacadda UC Berkeley waxay siisay shaqo profesor kaaliye ah. markii loo fiiriyo Ted wuu fiicnaa, balse wuxuu aad u necbanaa inuu macallin noqdo. ma jeclayn shaqadaas, mana jeclayn ardayda, sidoo kalena ma jeclayn inuu dadka dhex galo. walaalkiis wuxuu yidhi Ted qof ahaan uma muuqan jirin mid aad isugu kalsoon. dabcan dadku waxay lahaayeen Ted waa macallin xun. ardaydu waxay fasalkiisa u galayeen rajo ah inay wax ka bartaan caqliyadiisa aad ku sareysa, balse waxay heleen profesor qalafsan. sanadkii labaad uu joogay jaamacadda, Ted wuxuu joojiyay inuu la macaamilo ardayda. wuxuu jaray xiriirka uu la lahaa macallimiinta kale. wuxuu u guuray qol yar oo ka fogaa jaamacadda, laakiin sabab ayaa jirtay. wuxuu necbanaa sida tiknoolajiyadda u burburinayso dunida. su-aasha la isweydiin karo, maxaa ka dhigay macallin maskaxdiisu ay aad u sareyso ilaa heer Einstein haddana inuu ka xanaaqo tiknoolajiyadda? Ted wuxuu rumaysnaa inuu ku nool yahay waxa ugu yeeri jiray bulshada warshadaysan ama dunida casriga ah. ninkan Ted ah wuxuu ka niyajabay dunida, wuxuuna tiknoolajiyad u arkay shar. horumarkeedana wuxuu arkayay shar. dadka aqoonta tiknoolajiyadda lehna wuxuu arkayay inay ka been sheegayaan ruuxda bini'aadamka. Ted wuxuu doonayay inuu ka cararo nolosha. sanadii 1969, 2 sano kadib markii la shaqaaleysiiyey, Ted wuxuu iska casilay shaqadii uu ka hayay jaamacadda. ma uusan awoodin inuu la macaamilo dadka kale ee bulshada. sidaas darteed wuxuu aaminsanaa inay qasab ku tahay inuu ka fogaado dadka. muddo yar ayuu la noolaa waalidkiisa, laakiin ugu dambeyn wuxuu iibsaday dhul yar oo ku yaal keymaha fog ee gobolka Montana. Ted wuxuu halkaas ka dhistay qol yar oo qoryo iyo alwaax ah, wuxuuna iska fogeeyay waxa tiknoolajiyadda loogu yeero. koronto ma lahayn, biyo tuba ah oo soconayana ma jiro. wuxuu adeegsanayay foorno alwaaxa lagu shito oo cunto iyo diirimaad uu ka heli karo. sidoo kalena biyihiisu waxay ahaayeen kuwa uu soo dhaansado. halkaas ayuu keligiisii ku noolaa iyo dabeecad xumadiisa. muddo yar kooban ayuu halkaasi ku noolaa, wuxuuna maalintiisa ku bixin jiray inuu raadsado cunno duurjoog ah, buugaagtii horeyna uu akhriyo, kuna safro baaskiil si uu magaalada u tago. laakiin xitaa isagoo meel cidlaha ku nool,
naciibkiisii tiknoolajiyadda ma isbedelin. Sanadii 1971 Ted wuxuu qoray maqaal 23 bog ah oo si cad ugu faahfaahiyey sida uu aaminsanaa in tiknoolajiyaddu ay u burburinayso adduunka. Wuxuu yidhi, marka ay dadku kalsoonidu siiyaan mashiinada, waxay luminayaan awooddii ay noloshooda ugu talin jireen. Habka keliya ee lagu badbaadin karo adduunka waa in la joojiyo horumarka tiknoolajiyadda. Wuxuu maqaalkaas u diray qoyskiisa. Taasina waxay ahayd markii ugu horeysay ee Ted si dhab ah ula wadaago fikradihiisa madownayd. Wuxuu bilaabay inuu qoro warqado ka muuqda xanaaq iyo nacayb, sidoo kalena ku jirta eedayn uu u dirayo waalidkiisa. Kadib sanado badan uu ku noolaa keymaha, noloshiisii degneedna way burburtay. Tiknoolajiyadii uu necbanaa ayaa ugu timin noloshiisa, yacni keyntiisa, taasoo ugu dambeyn maskaxdiisii beddeshay. Sanadii 1975 shirkado dhismo ayaa yimi Montana. Waxay jareen geedaha, waxay dhiseen wadooyin, waxayna bilaabeen inay guryo cusub ka dhisaan halkaas. Keymihii uu Ted jeclaa way dabar go'een. Diyaarado ayaa dulmarayay dhulkuu deganaa. Wuxuu arkay mootoolee ku socdaalaya keymaha. Mashiinadii waaweynaa ee dhulka qodayeen waxay dhulkaas u rogeen jidad cusub. Ted wuxuu ku tilmaamay waqtigaas inuu ahaa goortii uu dilaacay warkiisii uu sheegayay. Wuxuu dhahay, ma qiyaasi kartid sidaan u xanaaqay. Waxaan go'aansaday inaan la dagaalamo nidaamyadan cusub, aargudasho. Waxaana bilowday aargudashadiisa. Ted wuxuu bilaabay inuu weeraro dadka taageera tiknoolajiyadda iyo goobaha lagu farsameeyo. Wuxuu ku bilaabay waxyaabo yaryar. Markii hore wuxuu burburiyey guri ku dhawaa hoygiisa. Markaa kadibna wuxuu dab qabadsiiyey mashiin weyn oo dhulka qoda. Dabadeedna shidaal ayuu ku shubay taangiyada barafka jara. Dhowr maalmood kadibna qalab dhisme ayuu burburiyey. Laakiin Ted ma uusan helin wax la hadla oo qanciya. Markaas ayuu go'aansaday inuu sameeyo wax aad waali u ah. Wuxuu sameeyey bambaanooyin oo u dirayo hab boosta ahaan. Bartilmaameedkiisii ugu horeeyay wuxuu noqday professor la yiraahdo Berkeley Chris. Wuxuu ahaa professor injineernimo oo ka tirsan jaamacadda Northwestern. Ted wuxuu sameeyey bam yar, wuxuuna ku qariyay baakad. Kadibna wuxuu boosta ahaan ugu diray Berkeley. 25 May 1978 baakadii waxay timid jaamacadda Northwestern. Waxaa ku qornaa magaca Berkeley Chris, balse ciwaan laga soo diray kuma xusneen. Berkeley wuxuu dareemay in wax khaldan yihiin, wuxuuna u wacay ilaalada ammaanka ee jaamacadda si ay u eegaan. Markii waardiyihii furay sanduuq wuu ku qarxay. Nasiib wanaag qofna ma uusan dhiman, laakiin labadaba Berkeley iyo waardiyihii way dhaawacmeen. Booliisku waxay bilaabeen baaritaan, laakiin ma aysan garan karin cidda soo dirtay bambada amba sababta. Tani ayaa ahayd bilowgii dambiyadiisa. Ugu dambeyn, booliisku waxay ku soo gabagabeeyeen in qaraxaasi uu ahaa ciyaar amba kaftan aan wanaagsanayn, laakiin muhiimad badan ma siisiin. Laakiin waxaysan ogeyn ayaa ahayd in tani ay tahay bilowgii ololaha argagixiso ee Ted. Sanad kadib, Ted wuxuu bam kale u diray isla jaamacadda Northwestern. Markaan arday baa furay baakadka, wayna ku dhaawacmeen, laakiin bartilmaameedkiisii xigay wuxuu ahaa mid ka daran kuwii hore. Bishii November 1979 diyaarad ka tirsan shirkadda American Airlines ayaa ka duushay magaalada Chicago iyada oo u socotay Washington, balse markii ay hawada gashay qiic ayaa lagu arkay gudaha diyaaradda. Rakaabkii waxay bilaabeen cabsi iyo qaylo. Nasiib wanaag, duuliye wuxuu ku guuleystay inuu si degdeg ah u dejiyo diyaaradda. Markii hay'adaha ammaanka ay baareen diyaaradda, waxay heleen bam lagu qariyay qaybta xamuulka. Nasiib wanaag, bamkii cilad ayaa gashay muuna qarxin, taasoo badbaadisay rakaabkii. Qarxinta diyaaraddu waa dembi federaal, sidaas darteed kiiska waxaa gacanta ku dhigay FBI-da. Markii ay FBI-da baareen bamka, waxay arkeen inuu aad ugu eg yahay kuwii hore loogu diri jiray jaamacadda Northwestern. Habka loo sameeyey bamka, sida alwaaxyada loo jaray, sida loo xirxiray, calaamadaha ku yaal alwaaxda, iyo sida taybka loo isticmaalay, dhammaan waxay ahaayeen isku mid. Markaas ay FBI-du garatay in qorshahan uu wato hal qof kaasoo ku sugan gudaha dalka. Waxay siiyeen magaca Ambomber oo ka yimi University iyo Airline, balse FBI-du ma aysan helin faro, markhaati ama wax tilmaamaya qofkan dembigan sameeyey. Laakiin waxay heleen hal calaamad, waana xarafyada F iyo C oo loogu dhejiyay bamka. Waxay u maleeyeen inay tahay furaha koox argagixiso ah, laakiin kadib bilooyin baaritaan waxay ogaadeen in FC aysan wax micno lahayn. Ted ayaa si ula kac ah ugu dhejiyay si uu u marin habaabiyo baadigoobka booliiska. Intaas waxaa sii raacay weerar kale muddo 6 sano oo xigtay. yacni warka haddaan idin soo koobo, ninkan dembiyo qaraxyo oo waaweyn ayuu fuliyey. kama gaarno inaan mid u qeexno, saas darteed waynu soo koobanaynaa. FBI-du way la yaabneed falalkiisa oo waxay noqdeen kuwa si gaar ah u doonaya inay qabtaan dambiilaha.
2 sano kadib waxay heleen fursad ay ku qaban karaan. 20kii February 1987 Ted wuxuu u baxay inuu bam kale meel dhigo. markaan wuxuu geeyay dukaan kombiyuutarada lagu iibiyo oo ku yaal magaalada Salt Lake City. laakiin intii uu socday weerarka, xoghayaha dukaanka ayaa daaqada ka arkay isagu wuxuu xirnaa jaakad leh koofiyad iyo ookiyaal madow ah ama miraayadaha indhaha noocoodii oo madow ah, isagoo isku dayaya inuu qariyo wejigiisa iyo indhihiisa. xoghayaha dukaanka ma aysan u malaynin in wax halis ay jiraan, laakiin saacad kadib baakadkaas wuu qarxay isagoo dhaawac u geystay milkiilaha dukaanka. markii booliisku yimaadeen, xoghayihii waxay u sheegtay wixii ay aragtay ninkii ay daaqada ka aragtay. markaasi booliisku ku saleeyeen muuqaalka ay bixisay, sawir qiyaas ayay sameeyeen. tani waxay ahayd markii ugu horeysay FBI-du ay heleen sawir qiyaas oo ka tarjumaya sida ambomber u ekaan karo, waxayna sawirkii ku baahiyeen dhammaan saldhigyada TV-yada dalka oo dhan. balse Ted sawirkiisu ma ku filnayn in si toos ah loo garto, laakiin Ted wuu ogaaday in macquul tahay in la aqoonsado, taasna aad ayooga baqay. bilow cusub muddo 6 sano ah, ambomber wuu aamusnaa, wax weerarana ma dhicin. FBI-du waxay u maleeyeen in gebi ahaanba joojiyey, laakiin iyaga ayaa iska dhaadhiciyey. Ted wuxuu hakiyey weerarada sababtoo ah sawirka laga sameeyey ayaa cabsi geliyey. markii ay gaartay 1993 kalsoonidiisii waa ay soo laabatay. markaas ayuu mar kale weeraray. bartilmaameedkiisan cusub wuxuu noqday Dr. Charlie Epstein oo ahaa saynisyahan ka tirsan jaamacadda San Francisco. 22 Juun 1993 Dr. Charlie wuxuu helay baakad suufi ka buuxa oo boosto ku timi markii uu furay bamba ku qarxay. kaliya 2 maalmood kadibna Ted weerar kale ayuu geystay. markaan baakadku wuxuu u diray Dr. David oo ahaa saynisyahan caan ah oo ka tirsan jaamacadda Yale. isla markiiba markii David furay baakadkii wuu qarxay. labada weerar waxay galeen weeraro waaweyn. dadkii waxay garteen in Ted uu soo noqday. sanadkii 1994 Ted wuxuu qaaday talaabo aan fiicnayn. muddo 5 bilood gudahood wuxuu diray 2 baakad, 2 qof ayaana ku dhintay. laakiin Ted ma uusan doonaynin in weeraradiisu ay u ekaadaan kuwa aan xiriir la lahayn wuxuu aaminsan yahay. wuxuu doonayay in dadku fahmaan sababta uu tan u sameynayo. sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu fariin u diro adduunka oo dhan. bishii Juun 1995 Ted wuxuu boosto u diray maqaal dheer kuna socday wargeysyada waaweyn sida New York Times iyo Washington Post. maqaalkii waxaa la socday hanjabaad cabsi leh: haddii aad daawacdaan maqaalkayga waan joojinayaa qaraxyada, haddii kale dhibaato ayaa dhici doonta. wuxuu rabay in si dhammaystiran loo daabaco maqaalkiisa iyadoon waxba laga jaraynin. wuxuu u sheegay in haddii ay sidaas sameeyaan uu ballan qaadayo inuusan wax dambiya sii wadi doonin. go'aankaasi ma ahayn mid fudud. dhinaca wargeysyada ma aysan rabin inay faafiyaan fikirkiisa, laakiin dhinaca kale haddii ay diidaan, nolosha dad dheeri ah ayaa halis geli lahayd. ugu dambeyn 19 Sebtembar 1995 Washington Post waxay daawacday maqaalkan Ted. dadku waxay ugu yeereen Ambomber Manifesto, laakiin ciwaanka rasmiga waxa uu ahaa Industrial Society and its Future, bulshada warshadaysan iyo mustaqbalkeeda. maqaalka gudihiisa Ted wuxuu sharxay sababta uu aaminsanaa in tiknoolajiyadu ay dunida burburinayso. wuxuu sheegay in bulshada ay aad ugu tiirsan tahay tiknoolajiyada. wuxuu xitaa ka digay in xilliyada qaar tiknoolajiyadu ay bedeli doonto DNA-ga aadamiga. ujeedadiisuna waxay ahayd in dadku ka wacyigeliyo khatarta tiknoolajiyada. dhammaadka maqaalka Ted wuxuu ugu baaqay kacdoon bulsho. wuxuu doonayay in bulshadu ay kacdo oo ay burburiso tiknoolajiyada. maqaalkaas wuxuu dhaliyay doodo xoog leh. qaar waxay u arkayeen inuu ahaa nin haliyey ah oo geesi ah, qaar kalena waxay yiraahdeen waa hadal maalayacni ah. laakiin FBI-du waxay u ahayd fursad dahabi ah. malaayiin Maraykan ayaa akhrinayay maqaalkaas. waxa ay FBI-du rajaynaysay in qof uu aqoonsado hab qoraalka uu isticmaalay Ambomber. mid ka mid ah wakiilada FBI-du wuxuu yiri wuxuu lahaa hab qoraal gaar ah. waxaan rajaynaynay in qof akhristay uu oran doono aniga ayaa garanaya qofkan, wuxuuna fariisan jiray dhinacayga xilliyadii fasalka. taasi waa ay dhacday. qof baa isla markiiba aqoonsaday hab qoraalka, wuxuuna ahaa walaalkiis ka yar David. markii David uu akhriyay qoraalkii Ted Manifesto, waxaa markiiba ku soo dhacday xusuustii waraaqii hore ee Ted uu soo diray. Ted wuxuu arrinta u sheegay xaaskiisa, waxayna si wada jir ah bilaabeen inay baaraan dhammaan waraaqihii hore ee Ted, iyagoo raadinaya wax la mid ah kuwa ku jira Ambomber Manifesto. mid ka mid ah waraaqahaasi Ted wuxuu isku tilmaamay maskax furane oo xisaabaadka ku fiican. ereygaas
oo si sax ah ugu jiray faqradda 18aad ee qoraalka manifesto. Bishii Febraayo 1996, David wuxuu qaatay go'aankii ugu adkaa noloshiisa. Wuxuu go'aansaday in walaalkiis gacanta u geliyo FBI-da. Wuxuu siiyey FBI-da maqaalkii 1971. Khubaro luuqadeed ayaa isbarbardhig ku sameeyey qoraalkaas iyo manifestoga, waxayna heleen in ka badan 160 weerood oo isku mid ah iyo qaab iswaafaqaya. Mid ka mid ah xubnaha baaritaanka ayaa yiri, waxaa noo caddaatay aniga oo badan in caddeymihii iyo qoraaladii la helayba ay inoo noqdeen tilmaamo wanaagsan oo lagu qaban karo. 3 Abriil 1996, FBI-du waxay qaaday talaabadoodii ugu dambeysay. Saacaddu marka ay ahayd 11 saac subaxnimo, waxay saldhigyo ka samaysteen agagaarka aqalka Ted ee keynta dhexdeeda ku yaalay. 2 wakiil oo isu ekeysiyay ilaaliyaal keynta ah ayaa garaacay albaabka. Ted waxay isaga dhigeen dad weydiinaya wado. Markii Ted dhabarka u jeediyey ay ku boodeen oo ay qabteen. Mid baa yiri, wuxuu u ekaa qof aad u baaba'san, wejigiisa iyo dharkiisaba waxay u ekaayeen kuwa wasakhaysan. wakiiladii gacmihiisa qabtay waxay xitaa dhaheen gacmihiisa waxa ku haleysnaa boor iyo wasakh madooban. Markii Ted la xiray, FBI-du waxay si toos ah ugu jeesteen aqalkiisa. Halkaas waxay ka heleen bam diyaarsana oo la diri rabay, qoraallo gacanta lagu qoray oo faahfaahinaya weerarada uu fuliyey, funaanadii, koofiyadii lagu arkay iyo sawirka qiyaaska laga sameeyey, iyo mashiinka qorista ama waxa loo yaqaan typewriter-ka ee manifestogu ku qoray isaga. Halkaas ayuu kiiskii ku xirmay. Bishii Abriil 1996, Ted wuxuu hortagay maxkamadda federaalka, waxaana lagu eedeeyay 10 dacwadood oo la xiriira dirista iyo isticmaalka bam si sharci darro ah iyo dambiyo kale oo dheeraad ah. Cadeymuhu waxay ahaayeen kuwa culus. Qareenada Ted waxay sameysteen qorshe. Waxay rabeen inay doodoodu ku dhisaan inuu yahay qof waalan si uga badbaado dil toogasho. Laakiin Ted wuu diiday. Wuxuu aaminsanaa in haddii la yiraahdo wuu waalnaa, dhammaan fariintiisii ay noqonayso mid aan macno lahayn. Markaas ayuu bilaabay inuu la dagaalamo qareenadiisa. Kadibna wuxuu isku dayay inuu isdilo, laakiin waardiyaasha ayaa ku guuleystay, waa ayna badbaadiyeen. Kadib isku daygaas, Ted waxaa loo diray baaritaan maskaxeed. 6 maalmood kadibna, dhaqaatiirta cilmi nafsiga waxay u aqoonsadeen inuu qabo cudurka schizophrenia, laakiin Ted wuu diiday. Ma rabin in loo arko qof waalan. 22 Janaayo 1993, Ted wuxuu qirtay dhammaan dambiyada lagu soo oogay, waxaana lagu xukumay cimrigaaga ha ku furto, yacni xabsi daa'im oo isku xiga. Kadib xukunkaas, dowladda Mareykanka waxay la wareegtay aqalkiisii keynta. Waxyaabihii laga helay ayaa la xaraashay. Waxaa xitaa laga helay $232,000. Lacagtaas waxaa loo adeegsaday in lagu caawiyo dadkii dhibanayaasha ahaa. Ted waxaa lagu xiray xabsiga ugu adag ee Supermax ee ku yaal gobolka Colorado, halkaas oo lagu xiro qofka 23 saacadood maalintii gudaha qol mugdi ah. Laakiin xitaa markuu xabsiga galay, dadku ma aysan iloobin fikirkii Ted, wuxuuna helay boqolaal waraaqo oo ka yimid dad taageersan fikirkiisii qaldanaa. Sanado badan kadibna, warar lagama helin, laakiin 2021 waxaa la shaaciyay inuu qabo cudurka kansarka. 10 Juun 2023 waxaa la helay isagoo meyd ah gudaha qolkiisa. Wuxuu lahaa maskax heer sare ah, laakiin caqligu weligiis ma noqon karo beddelka akhlaaqda iyo xurmada aadanaha. Caqliga aanan la socon damiirku wuxuu isku rogi karaa burbur. Saaxiibayaal, sheekadeena maanta halkaas ay ku eg tahay. Haddaba daawade, aan ku weydiiyey sideed u aragtaa fikirkii Ted.